waxaan salaamayaa maamulka rugta ganacsiga iyo ganacsatada guud ee gobolka Brandir iyo waliba koonfurta Soomaaliya oo maanta halkan maaragtay muxuu ahaa u yimid dhibka haysta oo ka haysta dekada iyo maaragtay muxuu ahaa maamulada ee gobolka Brandir ee waxaan dekada oo cabasho ka muujiyay iyo waxaan kaloo salaamayaa nimankan saxaafadda bahda saxaafadda aad baa u mahadsantihiin wadin salaamaya wadin soo dhaweynaya waxaan halkan maanta u nimid oo ganacsatada magacaygu waa Caabi Xirsi Aadan sida maaragtay muxuu ahaa hore u maqasheen waxaan halkan maanta u nimid oo ganacsatada Soomaaliyeed isu keenay dhib haysta dhibkaas kama haysto xagga dawladda wuxuu ka haystaa muxuu ahaa shibinada alaabta laynka ka keenay dibadda ayuu ka haystaa dhibkaasu iyo dad ganacsato ah oo magacyo la baxay oo shibil ah ayagu magac ganacsato isku sheegay oo u sameysay tariifooyin gaar ah oo ka baxsan canshuurta dawladda oo sharciga ah oo dadkii markay rabaan inay badeecadii la baxaan la yiri inaad bixisaan maana ma baxayso alaabtiinu dhibaatadaas ayay ka cabanayaan ganacsatadu ilaa 3,000 oo container baa dekada ku jirta oo lagu soo dalacay qiimahaas aan ahayn midkii sharciga ahaa cabashadaas ayaa isu keentay ayaday ka cabanayaan waxaan baaq u diraynaa kuwa sidaas sameeyay in ay ka tanaasulaan in waxaan sharci ahayn oo canshuurta dawladda waafaqsanayn oo waxa la isku ogayo curfiga aan waafaqsanayn ay ka daayaan ummadda Soomaaliyeed oo awal dhibaneed oo aysan ku dhibin dekada iyo shaqadooda dadkan waa dadkii canshuur bixinayay waa dadkii dadka u gargaarayay waa dadkii jidadka ma taqaanaa dhisayay waa ogtiin cid walbana way ka warqabtaa waxaan leeyahay baaq baan u dirayaa ka daaya mar labaad iyo mar saddexaad ha dhibinina dadka ganacsatada waayo dhib kasta oo lagu sameeyo badeecada waxay u gudbaysaa dadweynuhuna way ku cawarmayaan iyadoo abaara jiraan iyadoo colaadu jirto waxaan leeyahay ka daaya dawladda waxaan uga cabanaynaa dadkaas in ay gacan bira ku qabato oo ay shaqadeeda ka qabsato oo shacabka iyo dhibaatada ay dadka ku sameynayaan ay ka joojiyaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.